kulanti wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan Bulsho Sports TV markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada ay leeyahay waxa kamid ah xidig muhiim ah oo laga ganaaxay xulka Brazil ee finalka Copa America Sergio Ramos ayaa shaaciyay lambarka uu u xiranayo PSG xulka qaranka England ayaa u soo baxay finalka tartanka qaramada Yurub intaasi waxay qodobadii warka haatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan xidig muhiim ah oo laga ganaaxay xulka Brazil ee Copa America qodobkaasi waxa iga yahay Xuseen Cumar Xuseen weeraryahanka Manchester City ee Gabriel Jesus kaar casaan oo toos ah qaatay kulankii Chile Brazil ayaa rajaynaysay inuu Jesus soo laaban doono finalka hase yeeshee xiriirka kubadda cagta Latin America ayaa shaaciyay in laacibkan la ganaaxay ciyaar kale oo dheeraad ah oo aan ahayn tii uu casaanka ku maqnaan lahaa taas oo ka dhigan inuu seego finalka Gabriel Jesus ayaa raaligelin ka bixiyay falka uu sameeyay Sergio Ramos ayaa shaaciyay lambarka uu u xiranayo PSG qodobkaasi waxa iga yahay Xasan Cumar Xuseen Sergio Ramos ayaa shaaciyay lambarka uu xiran doono kooxdiisa cusub ee PSG oo saxiixay heshiis 2 sanadood laakiin aan wali si rasmi ah loogu soo bandhigin warbaahinta. Ramos oo si xor ah uga tagay Real Madrid ayaa maanta ka gudbay tijaabada caafimaadka. Ramos ayaa wareysiga waxa uu ku sheegay inuu xiran doono lambarka ugu jecel yahay lambar 4. xulka qaranka England ayaa u soo baxay finalka tartanka qaramada Yurub warbixintaasi waxa iga Qamar Maxamed Cumar xulka qaranka England ayaa u soo baxay finalka tartanka qaramada Yurub ee Euro 2020 oo ay kula balameen Talyaaniga kadib markii ay 2-1 kaga badiyeen Denmark ciyaar lagu daray 30 daqiiqadood oo dheeraad ah ayaa uu Ingiriiska ku xaqiijistay finalkii ugu horeeyay ee tagaan muddo 55 sanadood ah waxayna wajihi doonaan Talyaaniga oo ka soo adkaaday Spain Denmark ayaa gool la hormaray daqiiqadii 30aad waxaana laad xora oo toogasho toos ah u dhaliyay Michael Damsgaard waxayse Ingiriisku dabaaldegeen 9 daqiiqadood kadib iyadoo uu gool iska dhaliyay kabtanka Denmark oo isku qabtay kubadda ka timid Sterling waqtigii dheeraadka ah ee lagu daray ciyaarta ayay England heshay rigoore waxaana u tuuray Harry Kane oo laga qabtay balse dib ugu celiyay oo dhaliyay sidaas ayaana ciyaartu ugu soo dhamaatay 2-1 finalka Euro 2020 waxaa sabdiga wada ciyaari doona Talyaaniga iyo Ingiriiska iyadoo lagu ciyaari doono isla garoonka Wembley ee labadii kulan ee uu dambeeyay ka dhaceen Arsene Wenger ayaa ka hadlay rigooradii muranka dhalisay England tababari hore Arsene Wenger ayaa ka hadlay rigooradii muranka dhalisay England kaga badiyay xulka Denmark kulankii semifinalka Euro 2020 ee ka dhacay garoonka Wembley Raheem Sterling ayaa ku guuleystay rigoore lagu tilmaamay been abuurka kulankii xalay ee England ku xaqiijistay finalka taabasho aad u yar ayaa ka soo gaartay xidiga Manchester City kaasoo isku dhex tuuray xeerada ganaaxa iyadoo garsoore Danny Mikel uu tilmaamay gool kulaad tababaraha liiga ayaa sheegay inay ahayd rigoore been ah isagoo u sheegay Bein Sports rigoore maysan ahayn ma fahmin sababta xaaladda oo kale aysan faar u soo dhexgelin garsooraha ma uusan aadin shaashada si uu dib u eegis ugu sameeyo waqti sidaas oo kale waa qasab inaad 100% iska hubiso go'aankaaga xulka Three Lions waxay ku beegan yihiin Talyaaniga maalinta Axadda ee soo socota Chelsea oo fasaxaysa xidig weyn kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa isku diyaarinaysa macsalaameynta mid kamid ah xidigeeda waaweyn oo shandadiisa xilxilay toddobaadkan ka baxay Stamford Bridge Chelsea ayaa rajaynaysa isbedelo intii uu furan yahay suuqa iibka ciyaartooyda oo durba muddo bil ah dhamaatay waxayna qorsheeyeen inay isku xoojiyaan difaaca iyo afka hore ee weerarka iyadoo ay Thomas Tuchel raadinaya dhaliyo dabiici ah oo karti badan Erik Haaland ayaa si weyn loola xiriirinayay laakiin haddii ay waayaan waxay haystaan dooqyo kale oo ay u dhaqaaqayaan oo ay la soo saxiixdaan waxaan arintaa ka wada shaqeynaya Tuchel iyo Roman Abramovich sida xilli dambe oo xalay qortay warbaahinta Sky Sports Erik Haaland ayaa si weyn loola xiriirinaya laakiin haddii ay waayaan waxay haystaan dooqyo kale oo ay u dhaqaaqaan oo ay la soo saxiixdaan waxaan arintan ka wada shaqeynaya Tuchel iyo Roman Abramovich sida xilli dambe oo xalay ay qortay warbaahinta Sky Sports Italy Chelsea ayaa waxa toddobaadkani ka tagay weeraryahanka reer France Olivier Giroud oo wada hadallo kula jira AC Milan isla markaana qarka u saaran inay gaadhaan heshiis Sky Sports Italy waxay intaasi ku dartay inay Khamiista maanta la filayo inuu dhamaado heshiisku isla markaana uu 34 jirkan u duulo magaalada Milan si uu u maro tijaabada caafimaad inta aan kusoo gabagabeynayna wararkii ciyaaraha Bulsho Sports TV anigoo Municima waxaa idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo